بسم الله magacayga waa Fattaax Xasan Cabdi mar kale kusoo dhawaada barnaamijka falanqaynta carruurta. Maanta ciwaanka ka hadli doona waxaa waaye gudubka ama dulmiga. Waxaa maanta igala qayb qaadanaya barnaamijka Almaas, Raaqiya, Ilyas iyo Xamse. Mar kale kusoo dhawaada barnaamijka. Haddana waxaa bilaabaneynaa su'aalaheena. Su-aasha ugu horeysa waa maxay dulmiga ama xadgudubka? dulmigu waa dhaqan xun inaad qof gardareysatid aa kula dhaqantid dhaqan xun sida inaad ka qaadatid wuxuu haysto aa xoog uga qaadatid markoo anaa laku dhahone aa la dagaashid ama aflagaadaysid taas waxay noqon kartaa dulmi aa qofkan adiga ku samaysay. Ilyas, waa maxay dulmiga ama xadgudubka? xadgudub ama dulmi waa wax oo laba qofood camal oo is ag fadhido mid kale ka horeeya inuu mid kale dharbaaxo haddana mid kale aan wax ka sameyn inuu kusoo boodo oo isqabsadaan magaciisa dagaal ka dhacdo waxaa usoo marka kan kale usoo beeyo xadgudub saas aa dhahaa marka qof kale adoo wax ka sameyn ku xadgudubto. Haddana su-aasheena labaad ayaa gudbaynaa. Intuu ka dhacaa dulmiga? dulmigu wuxuu ka dhacaa iskuulaadka, fasalada, banaanka, meelaha bulshada isku imaadaan iyo meelaha lagu shaaxo ama meelaha dadka qaar ay isku imaadaan iyo meelaha oo la isku balansado ama maqaayadaha. Haye Raaqiyo, intuu ka dhacaa dulmiga? waxuu ka dhacaa meelaha waxbarashada sida meelaha waxbarashada iskuulaadka iyo caruurta markii ciidii la joogo masaajidka meel kastoo caruur isku imaadaanna waa isdagaalaan. Haddana waxaa u gudbi doonaa su-aasheena saddexaad. Almaas, noocyada dulmiga uu u kala bax ma noo sheegi kartaa? dulmigu wuxuu kala baxaan noocyo badan. waxaa jira qofka dulminaya adiga maskaxda inuu bulsho meelay joogto camal kuga caybeeyo kugu baadi kugu aflagaadi sida inuu ku dhaho damiin yahow dabaal yahow iyo waxaa jira dulmi qofkan inuu jib ku siiyo oo ku dilo iyo waxaa jira dulmi kale qof waxyaabaha leedahay inuu xulkaaga qaato tusaale ahaan waxaa leedahay inuu kaa dafo macnaha kula dhigo asagoo og inaadi leedahay. Haye Ilyas, noocyada uu u kala baxo dulmiga ma noo sheegi kartaa adigana? dulmi waxaa jira saddex nooc oo kala waaweyn oo kala baxaa. nooc ugu horeeya waa adoo macalinka fasalkaa soo bixiyey saaxiibka aragto adaa korkiis fadhiyo oo qalinkaa kasoo daftaas cashir qoranayo markoo kaasoo taga haddana markaa kasoo tagta macalinka oo kusoo gelin lahaa maleeya inaad qalinka caadi soo qaadatay saaxiibkaa kuwama hayo qalinkii macalinka kugu dacbeeya macalinka banaaga kuu bixinaya saaxiibkaa markaas soo kaxinaa karaa. dulmi iska caadi waa dulmiga labaad waxaa kamid ah adoo meel iska taagan in shaatigaa lagu qoro qalin oo laga bixiyo afka oo qalin biiraha oo lagu miiro dulmi waa asni qofkaas ku dhici kartiin waa la kala xali karaa caadi waa laakiin dulmi saddexaad dulmi weyn waa dulmigaas oo ah adoo iska fadhida in lagu imaado oo adoo wax sameyn waxaas adaa sameysay xaali adaa ka dish waxaas adaa lagu dilo haddana ciila qoonaa sababta ah wax qofka habeenka joogo marka dulmi intaas oo kala baxaa. Okay. Xamse, maxaa sababi kara xadgudubka? xadgudubka waxaa sababi karaa in qofka asiga oo wax sameynin loogu imaado waxaas adaa sameysa la dhaho waxaasna waa xadgudub. sidoo kalena qofkaas oo wax uusan sameynin lagu qasbo waa sameynay haddii qofka ma sameyn karo dhaho lagu qasbo waa sameynay qofkaas ilaas in waxaasna dulmi allah inaa ka xoog badantaan u ogaana. Haye Raaqiyo, maxaa sababi kara xadgudubka? xadgudubka waxaa sababi kara xadgudubka adoo meel iska fadhiisid qof intuu ku imaado uu ku dharbaaxo ama uu ku caayo marka waxaa maxaa ka wadaa dhaadina uu ku caayo isla weyni iyo kibir uu isbaabo. Haye Almaas, waa maxay natiijada ka dhalan karta qofka marka la dulmiyo? qofka marka la dulmiyo qof kala dulmiyo wuu xanaaqa wuxuu la dagaalaa qofka kale qofka dadka dulmiyeyna xoog waa asiina isku sheega oo meeshaas waxaa ka dhacaya dagaal iyo khilaaf weyn. waxaa dhici karta in iskoolka lagu baryo ee cashiradood meesha ku waayaan kan la dulmiyo wuxuu qaadaa cudad meeshaas naceeb iyo waxaa ka dhalanaysa bulshadoo isnacda labadii arday oo cadow isku noqdaan oo mar walba isdagaalaan khilaaf weyn ka dhacaa meeshaas. Haye Xamse, waa maxay natiijada ka dhalan karta qofka markii la dulmiyo? waxaa ka dhalan karta qofka markii la dulmiyo in qofkaas oo necbanaado qofka kale oo dulmi bilaabay oona naceeb zaaid u qaado qofkaasi oo cuqdadna gasho qofkaas oo la dulmiyey.
okay Ilyas diinteena maxay ka qabtaa dulmiga ama xadgudubka dulmiga xadgudubka diinteena waxay ka qabtaa inay xaaraan tahay taasoo nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam nabigana noo sheegay inay tahay xadgudub midka muslimka waa inay midka ka adkaada gacantiisa iyo carabkiisa haddaan adkayn midkaas waa muslimka sheegay taas adila dulmiga wax fiican maaha ay raaqi diinteena maxay ka qabtaa ku xadgudubka qof kale diinteena islaamka ma ogolo qof kale inuu ku xadgudbo dadka muslimkana inay oo dulmiyaan ma fiicno dulmigana waa waxan ay almas tilmaamaha qofka wax dulmiya ama iyo kan la dulmiya ma sheegi kartaa qofka wax dulmiyo waa qof kibir badan markuu soconayo kooxa dab socoto oo mar walba wuxuu raadinaa qof oo la dagaalo iyo qof oo dulmiyo qofka la dulminayo waa qof miskiin ah oo meel isku joogo qofka kan dulminayo waa qof oo mar walba dulmi iyo dagaal leh u soo joogo oo inuu dadka dulmiyo la jecel hay Ilyas tilmaamaha midka la dulmiyo iyo midka wax dulmiya ma sheegi kartaa lama midka oo la dulmiyo midkaas mar walba waa mid la kulmiyo midka wax dulminayo abuu ku xog badan yahay sanan qofka cilnaa ma laha mar walba ilaa marka dhagax iyo wuxuu qabsaa soo iska dabareebo marka daba heshiinayaan leeyahay laakiin midka wax dulminayo waa mid oo wuxuu isku ogaasi iyo waxa kala jirto midka oo mar walba dadka dulmiyo waa mid taqar badan asaa inay wax la soo gulmay sin waxa dadka ku fiis waxaas ku sii sameeyo warbiya marka tina waxa kamid ah marka wadiino taqar u yaalo inta ka jaxan fururta ka qolaan barbasi waadi iyo wixii la mid ah Xamse sidee looga hortagi karaa dulmiga dulmiga waxaa looga hortagi karaa in qofba qofka kale uu dulminin ay kala badbaadaan sida awalkooda oo dhaqmi jireen inay iska dhaqmaan ee wadadooda kala raacdaan hay almas fariinta aad u dirayso qofka wax dulmiya iyo mid kala dulmiya ma sheegi kartaa qofka mar walba wax dulmiyo waxaa dhihi lahaa dulmiga iska dhaaf sababtoo ah wax fiican ma ahan dadka way ku nacayaan dadka way kaa xumaanayaan xitaa waxaa dhacayso inay asxaabtaada dhan kaa fogaadaan aa saaxiibo dhanaynin qofka la dulmiyana waxaa dhihi lahaa iska sabar qofkaasna waxaa laga yaabaa inuu adig uga deysto saa uga sabrayso wuxuu sameynayo inuu asiina soo hanuuno oo adig uga deysto oo qof fiican noqdo hay raaqi adigna ma sheegi kartaa tilmaamaha hadda tusaale noqo sida dadka kale kugu daystaan oo dadka oo dulminayaan tusaale u noqo haddii kale adiga haddaa aa xumaatid ayagana waa kugu daba daysanayaan waxaa intaas noogu eg barnaamijkeeni falaqaynta caruurta aan uga hadlaynay mawduuc ahaa xadgudubka iyo dulmiga waxaan rajeynayaa inaa wax badan ka faa'iideen waxaan idin leenahay intaan barnaamijka la kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo mahadsantiin